وهي هيسن كرم سوماليلاند لي والله يابي بانك والله يابي وكو شراكيش ciidanku وكوا soo dhawaada daawadayaal qodobada daawan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xaquudirirka SSC qaatumo oo si weyn isaga difaacay ciidanka maamulka Somaliland ee weerar ku soo qaaday magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool guddiga 33 SSC qaatumo oo sheegay in darbaaxa kulul ay kala kulmeen Somaliland weerarka ay ku soo qaadeen magaalada Laascaanood duleedkeeda duqeynta ay jamhadda argixisada SNM ay wado oo awalba aanu haynay jawaab ku filan saaka way heleen hadda argixisada SNM maraafiic ku soo garaaceen meelaha dadka rayidka ah joogo ma awoodaan in ay u bareeraan ama ay hortagaan ciidamada SSC ee qalabka sida waxay beegsadaan mar walba meelaha dadka shacabka ah joogo jawaabtii oo ku filan way heleen si fiican ba talaabo sharciga looga qaaday waxaana ka qaaday ciidamada xaquudirirka aad waxaan u bogaadinayaa shacabka SSC meel ka soo aad joogtaan gacanta sare inaga ayaa nuuxna waxaan leeyahay nuuxow seeftaadii raawis bay noqotay waadiga soo dhaafeela dhuxun insha Allah waxaan rajaynayaa in ciidamada xaquudirirku gacanta ay kugu soo dhigi doonaan nuux taani iyo ciidamada uu wato oo u babacdhigi waayay ciidamada xaquudirirka SSC qaatumo kadibna madaafiic la soo beegsaday duleedka Laascaanood guryaha ku yaalo xaaladda magaalada Laascaanood oo si weyn isku bedeshay qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawan doontaan daawade haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe saar muuqaalka like saar si saaxiibo badan uu u gaaro waana mahadsantihiin aynu ku bilownaa daawadayaal jab xoogan ayaa ciidanka maamulka Somaliland lagu gaarsiiyay dagaal ka dhacay duleedka Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kadib markii ay isku dayeen in ay soo weeraraan magaalada Laascaanood oo ay xoog ku qabsadaan balse waxa arrinkaasi fashiliyay ciidamada xaquudirirka ee joogo fariisimaha duleedka Laascaanood kuwaas oo ka warhayay qorshaha ciidanka maamulka Somaliland iyo abaabulka dagaalka ay wadeen maalmihii ugu dambeeyay dagaalkan ayaa yimid xilli nuux taani uu soo gaaray gobolka Sool uuna Hargeysa kala yimid boqolaal ciidan ah oo uu doonayo in uu ku qabsado magaalada Laascaanood dagaalkani ayaa la sheegay in uu qarxay ciidamada Somaliland markii madaafiic ay ku soo garaaceen duleedka Laascaanood fariisimaha ay ka joogaan ciidanka xaquudirirka inkastoo dagaal foolka fool ah ay ku adkaatay ciidanka maamulka Somaliland inay kala hortagaan ciidamada xaquudirirka dagaalka xoogiisa ayaa ka dhacay duleedka magaalada aaga galbeed waxaana jira khasaare ka dhashay madaafiicda ciidanka maamulka Somaliland ay soo ridayeen iyadoo sidoo kale khasaare lagu gaarsiiyay SNM dagaalkaasi oo xabadda ciidamada SSC qaatumo ay ku leeftay duleedka Laascaanood ciidamada xaquudirirka SSC qaatumo ayaana ku guuleystay in ciidanka maamulka Somaliland ay ka saaraan goobaha lagu dagaalamay dhawaqa jugta rasaasta iyo hubka culus ee ciidamada SSC qaatumo ay isaga difaacayaan ciidanka maamulka Somaliland ayaa laga maqlayaa duleedka Laascaanood guddiga 33 SSC qaatumo oo ka warbixiyay dagaalka ka dhacay magaalada Laascaanood ayaa sheegay in ciidanka maamulka Somaliland ay iska difaaceen ciidamada xaquudirirka oo dagaalka ay ku gacan sareeyaan Cabdixamiid Daahir Black iyo xubnaha kale ee guddiga 33 oo shir jiraa'id ku qabtay xafiiska guddiga uu ku leeyahay magaalada Laascaanood ayaa sheegay in SNM ay weerar ku soo qaadeen waa berigii hore ee saaka balse lagu jabiyay weerarkaasi ay saaka soo qaadeen ciidanka nuux taani ayuu sheegay inay isku dayeen in Laascaanood ay soo weeraraan balse laga awood badiyay hayeeshee guddiga ayaa waxa uu nasiib darro ku tilmaamay in maamulka Somaliland uu madaafiic ku soo garaacay goobo ay deganaayeen dad rayid ah markii ay u babacdhigi waayeen ciidanka xaquudirirka SSC qaatumo ee joogo furimaha dagaalka guddiga ayaa wacad ku maray in SNM laga saari doono goobaha ay kaga sugan yihiin gobolka Sool gaar ahaan taliska Goojacade ee ay joogaan nuux taani ayaa lagula dardaarmay in ciidamada uu ku soo wado duleedka Laascaanood uu dib ugu celiyo dhulkoodii
maadaama ay khasaaro xooggan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jiro kala kulmi doonaan dagaalka. duqaynta ay jamhadda argixisada SNM ay wado oo awalba aanu haynay jawaab ku filan saaka way heleen. hadda argixisada SNM maraafiic ku soo garaaceen meelaha dadka rayidka ah joogo ma awoodaan in ay u bareeraan ama ay hortagaan ciidamada SSC ee qalabka sida. waxay beegsadaan mar walba meelaha dadka shacabka ah joogo. jawaabtii oo ku filan way heleen. si fiican baa tallaabo sharciga looga qaaday waxaana ka qaaday ciidamada xaquudirka. aad waxaan u bogaadinayaa shacabka SSC meel kastoo aad joogtaan gacanta sare inaga ayaa nuuxna waxaan leeyahay nuuxow seeftaadii raawis bay noqotay waadiga soo dhaafila dhuxun insha Allah waxaan rajaynayaa in ciidamada xaquudirku gacanta ay kugu soo dhigi doonaan. waliba 100% waxaan rajaynayaa halkan wixii aad ka geysatay ciqaabtada in lagu mariyo taasaan ku ballan qaadayaa. ciidamada xaquudirkaana waxaan leeyahay waxaa jira xilligii waxa soo galay xilligii aan waajibaadkeena gudan lahayn. insha Allah mar dhow waxaanu filaynaa furashadii gooja cadde waanu furanaynaa insha Allah hadii Ilaahay idmo. nuux taanina waxaan leeyahay nuuxow wiilasha yaryar ee aad khaladay oo aan garanaynin macnaha gooja cadde iyo halka uu ku yaalo iyo wixii kaga dhacay kuwii ka soo horeeyay ka daaca waaqibka saaka ayay wax garanayaan oo masaafada inta leeg la soo wadi. waxaan leeyahay inta ay nabad qabaan oo aan cawaaqib ku dhicin nabadgelyo guryahoodii ugu celi. wali chance baanu idin siinaynaa. xarunta dhexe ee guddiga ay ka talinta gobolada SSC Khaatumo ee magaalada Laascaanood dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka waxaanu la wadaagaynaa oo u sheegaynaa saaka oo ay bishu tahay 24kii bishii June isla markaasna lagu dhex jiro maalmihii xurmada lahaa ciidanka dulmidoonka ee Somaliland lixdii saaka oo taariikhda aan soo xusay ah ayay weerar ku soo qaadeen magaalada Laascaanood. weerarkaas oo ku bilowday madaafiicda goobta iyo kuwa taangiyada ka soo dhaca. waxa wax ku noqday dad badan oo shacaba oo badhna dhintay badhna dhaawacmay waxaana dumay guryo badan oo meherada ahaa iyo kuwa dedeganaa. sidoo kale waxa madaafiicdaas oo ay 4 tijaabo kaga soo miiseen magaalada markaana uu ku xigay weerarkii ciidamada lugta. hase yeeshee nasiib wanaag ay u suurto gelin waayeen ciidamada difaaca hore ee SSC Khaatumo oo si wacan isaga caabiyay kuna celiyay goobihii ay ka soo duuleen. kala xusud mudan khasaarahaasi wuxuu soo gaaray sidii hore baan u sheegnay meherado goobihii ganacsiga iyo goobihii warisgaarsiinta oo ay si toos ah u duqeeyeen anteenooyinkii shirkadaha warisgaarsiinta. waxa ku dhintay xoolo haddana aan hadlayo wata madaafiicdu dhacayso ka qaadayaan xalayto oo ay bishu ahayd 23 nuuxtaani wuxuu ku soo hoyday magaalada og. saaka waa barigiina wuxuu soo gaaray deegaanka dagaalkiina horay ayuu ka bilaabay u ballan qaaday. weerar qaawan oo la qorsheeyay oo ay maamulka SNM ama Somaliland si yaqaan ay ku soo qaadeen magaalada Laascaanood iyo agagaarkeeda. waxay ku bilaabeen saaka aroortii hore madaafiic sida uu sheegay Afhayeen Cabdirasaaq. waxay geysteen dhibaatooyin aad u fara badan dhaawacyo iyo dhimashaba waa jirtaa dadka shacabka ah. hanti burbur waa jiraa. goobihii kulanka dadku ka adeeganayay oo ay ka mid tahay hay'adda warisgaarsiinta Telesom ay duqeeyeen anteenooyinkii warisgaarsiinta ay ilaa imika xataa xoolihii banaanka taagnaa ay ku leedeen. dib baa imika loo celiyay oo ciidamadoodii soo durkayay dib baa loo celiyay waana laga adkaaday. ama Muuse Biixi dawladdiisu madaafiic inay la dhacaan caalamkana u sheegaan nabad baanu rabnaa xabad joojin baanu rabnaa aan waxba ka jirin. waxa weeye annaga inagu eedaynaya inaanu dhul weerar ku nahay kuma nihina guryahayaga bay noogu yimaadeen nagu duqaynayaan. wax allaaliyo waxay la hadheenna ma jirto. waa gobonnimo dagaalamanaadii waanu bedeloobay ballan qaadeen waa gunnimo dagaalamayna. gunnimo dagaalankoodu waa madaafiicdii
baanu isticmaali doonaa. waa ciidamada naflacaariga ah ee SNM oo laga helay muuqaal kooban oo muujinaya sida arxan darrada ah ee ay u isticmaalayaan hubka culus ee kaga yimid dhankaas iyo dalka Djibouti isla markaana ay ugu duqeynayaan saldhigyada ay leeyihiin ciidamada xaq u dirirka iyo sidoo kale xaafado ka tirsan kuwa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. ciidamadan ayaana waxay si toos ah u adeegsanayaan hubkan ilaa iyo inta la og yahay iyo baaritaanada la sameeyay waxaa si toos ah loogu ogaaday laguna xaqiijiyay in uu yahay hub kaga yimid maamulka Muuse Biixi dhankaas iyo dalka Djibouti isla markaana hubkan uu Muuse Biixi Cabdike ay tahay taageero uu ka helay haweeneyda lagu magacaabo Qadra Xayd oo uu qabo Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha dalka Djibouti ee kaliya taliyaha Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha dalka Djibouti ayaana waxa uu hadda u muuqdaa in si toos ah arrimaha taagan iyo sidoo kale culeysyadan ay saameyn ugu yeesheen xaaladana uu wax badan ka tari la'yahay. ciidamada xaq u dirirka SSC ayaa madaafiic ay saldhigyadooda ciidamada SNM saaka ku garaaceen kadib waxa ay bixiyeen jawaab rasmi ah oo ay siiyeen ciidamada SNM waxaana ay meesha ka saareen gebi ahaanba wax walba oo ahaa tillaabooyin iyo sidoo kale go'aano muujinaya in dhinacyadan ay qayb ka yihiin marka la fiiriyo xaaladaha kala duwan ee deegaanka iyo sidoo kale arrimaha u muuqda inay yihiin kuwa culeysle. tan iyo xalay iyo sidoo kale 48 saacadood ee la soo dhaafay ciidamada SNM waxa ay ka wadeen aagga saldhigga Gooja Cadde dhaqdhaqaaq xoog leh iyadoo la dareemayay dhaqdhaqaaqan iyo sidoo kale dhibaatooyinka gaarka ah ee ciidamada xaq u dirirka ah ay kala kulmayeen ciidamada SNM. saraakiisha ciidamada xaq u dirirka ah ayaa xalay sheegay in ay si dhow ula socdaan dhammaan dhaqdhaqaaqyada kala duwan iyo tillaabooyinka ay qaadayaan ciidamada SNM waxaana si toos ah saraakiishu u sheegeen in ay fahamsan yihiin dhaqdhaqaaqyadan iyo sidoo kale tillaabooyinka kala duwan ay sameynayaan ciidamada SNM. muuqaaladan waxaa ka muuqanaya ciidamada SNM oo marka ay awood u waayeen dhankaas ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC markan bilaabay in ay si toos ah u beegsadaan ciidamada waa dhankaas iyo ciidamada waa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. xaafado ka tirsan magaalada qaar ka mid ah isgaarsiinta iyo goobo muhiim ah ayaa madaafiicdan ay ku dhaceen. ciidamada SNM waayihii dambaba waxay si toos ah isugu diyaarinayeen in madaafiicdan ay ku garaacaan magaalada Laascaanood. sababta ay hadda madaafiicda garaaceeda u bilaabeen isla markaana ay magaalada u beegsanayaan waxay tahay in ay ka niyad jabeen in ay si nabad ah uga baxaan gudaha saldhigga Gooja Cadde. dhammaan qorshayaashoodii ku aadanaa ka bixidda gudaha saldhigga Gooja Cadde ayaa fashil ku dhamaaday. taas ayaana sababtay in ay qaadaan tallaabo ah inay beegsadaan dadka shacabka ah isla markaana ay si toos ah madaafiic ugu garaacaan dhankaas iyo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. arrintu waxay u muuqataa in faraha ay ka sii baxayso xaaladdu ay tahay mid halis ah dhinacyaduna ay qaadanayaan go'aamo iyo tillaabooyin u muuqda inay yihiin kuwa si toos ah bannaanka u soo dhigaya caqabadahooda iyo sidoo kale culeysyadooda. culeysyada iyo arrimahan kale ay wajahayaan ayaa ah kuwa mar walba meesha ka saaraya in ay aadaan goobaha rasmiga ah ee loo baahan yahay iyo sidoo kale meelaha lagama maarmaanka ah ee xaaladaha jira iyo culeysyada bannaanka soo dhigaya. caqabadahan iyo culeysyadan ayaa ay wajahayaan hadda waxa ay garan laayihiin tallaabo ay qaadaan. taas bedelkeedna waxa ay madaafiic ku garaaceen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. iyaga oo magaalada madaafiicda ku garaacaya ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC-na waxay si toos ah madaafiic ugu garaaceen saldhigga Gooja Cadde. waxaa la ololiyay guud ahaanba goobihii kala duwanaa ay ciidamada SNM ku sugnaayeen. dadka ku sugan gudaha magaalada Laascaanood iyo sidoo kale bannaanka magaaladaas ayaa waxay sheegayaan in madaafiicda ay si toos ah ciidamada SNM ula dhacayaan dhankaas iyo ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC. holaca iyo qiiqa ka baxaya gudaha saldhigga Gooja Cadde iyo fariisimihii ciidamada SNM ayaana u muuqda inuu yahay mid baaxadiisa leh isla markaana si toos ah faraha uga sii baxaya. dhinacyadu ilaa iyo inta la og yahay waxay qaadayaan tallaabooyin iyo sidoo kale go'aamo cadcad oo ay doonayaan inay ku wajahaan xaaladahan iyo sidoo kale wax ka qabashadooda. caqabadahan iyo culeysyada dul hoganaya ayaana ah kuwa inta badan aysan waxba ka bedeli karin marka la fiiriyo xilligan iyo sidoo kale go'aanada gaarka ah ee ay dhinacyadan qaadanayaan. caqabadaha iyo culeysyada ayaa ah
kuwa mar walba imaanaya xilliga rasmiga ahaa ee loogu talagalay. ciidamada xaquudirirka ahi waxay gubeen dhammaanba saldhigii gooja cadde intii sii badnayd. ciidamada SNM-na waxay noqdeen kuwa naflacaariya oo aan tamar badan iyo awood badan lahayn. laascanood iyo dadkeedu waxay u muuqdaan in ay hadda si toosa u arkayaan cadaawadda nidaamka SNM iyo Muuse Biix, isla markaana mar walba oo laga adkaado waxa ay ku cartaan dadka magaalada laascanood ee xarunta gobolka Sool oo ay si toos ah u baabi'iyaan, isla markaana ay madaafiic ugu garaacaan. saraakiisha xaquudirirkuuse waxay si walba ula socdaan dhaqdhaqaaqyada naflacaariga ee ciidamada SNM, waxayna og yihiin dhammaanba tillaabooyinkooda inay yihiin kuwo aan wax badan soo kordhinayn marka la fiiriyo. ciidamada SNM waxay qaadeen saacadii la soo dhaafay tillaabooyin kala duwan. 48 saac la soo dhaafay waxay u muuqdeen in si walba ay isugu diyaariyeen dagaal. waxaa soo hortaagan libaaxyo ay hulin waayeen, libaaxyo ay garan laayihiin wadda ay ka maraan, iyo sidoo kale xubno garanaya dhaqaaq walba iyo tillaabo walba ay sameeyaan. arrintaas ayaana waxay ka dhigan tahay in la joogo xilligii ugu muhiimsanaa ee gebi ahaanba meesha laga saari lahaa wax walba oo la xiriira caqabadaha iyo culeysyada kala duwan ee ay wajahayaan. dhinacyadan kala duwan ee nidaamka SNM ayaa waxay hadda ku jiraan maalmahoodii ugu adkaa iyo sidoo kale tillaabooyinkoodii ugu xumaa, taasoo muujinaysa in la joogo go'aamo iyo sidoo kale tillaabooyin u muuqda inay yihiin kuwa mar walba meesha ka saaraya caqabadaha iyo culeysyada gaarka ah ee ay wajahayaan. arrintu waxay u muuqataa in hadda ay faraha kasii baxayso, xaaladdu ay tahay mid dhinacyo kala duwana, isla markaana tillaabooyinku ay yihiin kuwo waa si toosa isku maquuninaya. caqabadaha iyo culeysyada ayaa kuwa kusii kordhaya nidaamka SNM. Muuse Biix iyo nidaamkiisu waxay hadda garan waayeen ciidankooda sida ula bixi lahaayeen, waxayna si toos ugu sheegeen in ay duqeeyaan magaalada laascanood, isla markaana iyaguna waxay ku dhimanayaan gudaha saldhigga gooja cadde. mana jirto wax badbaado ah oo u qaran ciidamada SNM ee magaalada sidaas u duqeeyay. ciidamada xaquudirirka SSC waxay si walba ula socdaan dhaqdhaqaaqooda, waxay ka hortaageen inay ka baxaan gudaha saldhigga gooja cadde. waxay u diideen dhammaanba tillaabooyinkii kala duwanaa ee dhaqdhaqaaqa ay samayn lahaayeen, waxayna si toos u muujiyeen awoodooda, tamartooda, kartidooda iyo sidoo kale qaabka ay u beegsanayaan dhammaanba ciidamada SNM. ciidamada naflacaariga ah ee SNM waxa ay hadda waqtigoodii, waayahoodii, awoodoodii, ciidankoodii iyo tababarkoodiiba uu kusoo ilaaday inay ka bixi waayeen gudaha saldhigga gooja cadde, isla markaana waxa keliya ee ay samayn karaan ay noqotay in gebi ahaanba ay si toos ah u beegsadaan shacabka magaalada laascanood ee xarunta gobolka Sool. marka laga tago dagaalka foolka ah ee weli ka soconaya gudaha saldhigga gooja cadde iyo sidoo kale ee dhankaas iyo aagga bari ee saldhigga gooja cadde, waxaa sidoo kale soconaya madaafiicda la iswadaarsanayo. ciidamada xaquudirirka ah madaafiicayay nafta kaga qaadeen gudaha saldhigga gooja cadde. waa uu ololayaa, gubanaya, madaafiicdoodana waa ay ku hoobanay, waa saldhigyadooda iyo sidoo kale goobaha kala duwan ee fariisimaha iyo meelaha difaacyada u ahna madaafiicda ayaa ku hubanaya. intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa daawadayaal muuqaalkan aad daawanayseen. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe saar, muuqaalka like saar si saaxiibo badan uu u gaaro. waana mahadsantihiin.